بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلهم وعنا وناسن داوديال idilkiin waa meel walba joogtaan isoo walba ay noo daawanaysaan waxaad ku soo dhawaataa muuqaal aan kaga hadli doono ciyaaryahanka weerarka ugu ciyaara kooxda Muqdisho City Club ahna xidigii Soomaali kooxaha dekadaha iyo Genyo Faisal Xasan Xaashi kaas oo dib ugu soo laabtay wadadii goolalinta horyaalka Soomaaliya Premier League xidiga weerarka ugu ciyaara kooxda kubadda cagta Muqdisho City Club Faisal Xasan Xaashi ayaa sanadkan hanaankii ugu wanaagsan ku jira isagoo bandhig cajiib ah ku soo bandhigay 6 kulan oo kooxdiisa ka ciyaartay horyaalka Premier League horyaalka Soomaaliya Premier League kala ciyaareedkan weeraryahankan halista badan ayaa kooxda Muqdisho City Club wuxuu ugu soo biiray naadiga dekadaha sanadkii 2019 sanadkan ayuu kooxdiisa MCC u dheelay horyaalka ugu horeeyay tan iyo markuu ku soo biiray laacibkan ayaa kooxda Muqdisho City Club u dhaliyay sanadkan horyaalka Soomaaliya Premier League 5 gool isagoo saftay 6 kulan horyaalka ah taasoo ka dhigan inuu ku jiro bandhig aad u horsareey ciyaarahan Faisal Xasan Xaashi wuxuu ku soo ifbaxay tartankii degmooyinka gobolka Banaadir sanadii 2015 wuxuuna xilligaasi matalay degmada Warta Nabadda ciyaaryahankan ayaa isla sanadkii 2015 ku biiray kooxda Genyo wuxuuna isla sanadkaas ku guuleystay goolalinta horyaalka Soomaaliya Premier League isla sanadkii 2015 wuxuu Faisal Xasan Xaashi nasiib u yeeshay isagoo daayar ah inuu matalo xulka qaranka dalkeena Soomaaliya xidigan ayaa ka hadlay bandhiga oo ku jiro xilli ciyaareed wuxuu yiri waxaan aad ugu faraxsanahay in dib ugu soo laabto goolalinta ama ku soo laabto goolalinta liigu bartay sidoo kale waxaan ii farxada inaan gool u dhaliyo kooxda MCC maadaama aan u dheelay horyaalka ugu horeeyay tan iyo markaan ku soo biiray kooxdan sanadkan bandhigay waa mid cajiib ah waxaan marka leeyahay 5 gool waxaan rajeynayaa ku guuleysto goolinta oo muddo ugu dambeysay inaan hanto waxaan rabaa inaan halkan ugu mahadceliyo dhammaan maamulka kooxda taageerayaasha ciyaartoyda kuwaas oo si wada jir ah igu wada shaqeeyeen ama si wada jir ah u wada shaqeeyaan si kastaba ahaatee amuurta kooxda MCC ayaa kulanka soo aadan waxay wajihi doontaa kooxda Cultumaan dekadaha ciyaar dhici doonta 5 bisha 2 sanada 2020 oo ku beegan maalin Arbaca ama isbuucaani biri oo kaliya ayaa noogu xigta Arbacada ay wada ciyaari doonaan hadaba daawade maxaad Faisal u rajeynaysaa waa sidee Faisal sanadkan miyuu ku guuleysan karaa horyaalka Soomaaliya Premier League hadii aragtidaada ay tahay hoos inoogu soo qor hadii ay ma yataana waa inoo muhiim wax walba oo aragtidaada ama ka dhex guuxaya waad mahadsantihiin daawashada muuqaalkan anaga ilaawin subscribe like share iyo comment ba